warbaahinta caalamka ayaa si weyn u hadal haysa dhacdo toogasho oo ka dhacday deegaan ku yaala dalka Koonfur Afrika kadib markii nin cadaan ah uu toogtay haweeney madow ah isagoo tilmaamay inuu ku qalday xayawaanka loo yaqaan jeerta. ninka toogashada geystay ee cadaanka ayaa maxkamad la hor keenay ka hor qirtay inuu toogtay haweeneydan isagoo sheegay inuu ku qalday xayawaankaas sidaasna uu ugu furay rasaasta. afayeen u hadlay booliska dalka Koonfur Afrika oo lagu magacaabo Memphis Wasebo ayaa sheegay in ciidanka boolisku xidheen ninkan cadaanka ah ee toogtay haweeneyda madow ee ku khalday jeerta. haweeneyda la toogtay oo lagu magacaabo Ramokona Lina oo 38 jir ah ayaa dhaawacyo ka soo gaadheen toogashada loo geystay xilli ay ku sugnayd beerta ninka toogashada geystay askariga. dhacdadan ayaa cadho badan ka abuurtay gudaha dalka Koonfur Afrika waxaana dhacdadani dhalisay hadal hayno tiro badan oo dhanka baraha bulshada iyadoo lagu eedeeyay cadaanka ku nool dalkaasi midabta koor.